الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaana shaki ku jirin in sheekadu ay tahay arrin dadkoo dhan ay xiiseynayaan, gaar ahaan ilmaha yararka ah. sheekadu waxay ka mid tahay hababka ugu muhiimsan ee door weyn ka qaata barbaarinta carruurta. haddii aad doonaysid inaad qof u sheegtid arrin wanaagsan, ugu yeertid dhaqan fiican, kuma filna keliya inaad fikrad ahaan uga dhaadhiciso ood ka qanciso. waxaa dhici karta qofkii inuu arrintii ka qancay uu fahmay, laakiin uu isweydiinaya arrintan sidee loo fuliyaa, halkee laga bilaabaa, wax caqabaada oo iga hor imaanaya ma jiraan haddii aan fuliyo, ma jireen dad hadda ka hor fuliyey, sidee u fuliyeen. su-aalahaas oo dhan waxaa ka shaafinaya qofka sheeko aad uga sheekayso oo arrintii wanaagsaneed tilmaamaysa, oo dad arrintaasi sameeyey oo ku daysan karana usoo qaadanaysa. barnaamijkan aan ugu magac darnay u sheekeeya carruurta waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno sheekooyin aan ugu talagalnay carruurta oo faa'iido badan iyo xiise badanba xambaarsan. sheeko kastoo sheekooyinka ka mid ah waxaa la socda sawirro macnihii qisada ka tarjumaya oo xiise badan leh oo ilmihii soo jiidanaya. sheekooyinkan barnaamijkan kusoo bandhigayna waxaa ka mid ah sheekooyin aan kasoo dhexxulanay qisooyinka kusoo arooray qur-aanka kariimka, sheekooyin ku jira sunnada nabi maxamed sal allahu alay wasalam, sheekooyin aan kasoo dhex dooranay taariikhda islaamka, sheekooyin ka tarjumaya dhaqanka wanaagsan ee soomaalidu leedahay, iyo sheekooyin kala duwan oo guud. barnaamijkan waxaan ugu talagalnay ilmaha da-dooda ay u dhexayso 7 jir ilaa 15 jir. way dhici kartaa ilmo 7 sano ka yar inay ka faa'iidaystaan. waxaa kaloo dhici karta in dad ka waaweyn 15 sano in iyagana ka faa'iidaystaan oo muraajaco u noqoto, laakiin waxay munaasib ku tahay oo si fiican uga faa'iidaysan kara ilmaha da-dooda u dhexayso 7 jir ilaa 15 jir. waxaan rajeynaynaa in ilmuhu aada uga faa'iidaystaan oo cilmi badan iyo thaqaafo ka kororsadaan, dhaqamo wanaagsan ay ka faa'iidaystaan oo ay ka mid tahay runta, daacadnimada, geesinimada, howlkarnimada, dulqaadka, u baari noqoshada waalidka, deeqsinimada iyo dhaqamo kale oo fara badan oo wanaagsan. qaabka barnaamijkan looga faa'iidaysanayo waxaa weeye in uu waalidka marka hore qisada daawado. haddii uu arko in ilmaha munaasib ay u tahay qisadu, inuu ilmihii la daawado, kadib dhaqamada wanaagsan ee qisadu tilmaamayso inuu ilmihii ku dhiirageliyo. kusoo dhawaada barnaamijka u sheekeeya carruurta, kala socda qisooyinka barnaamijka Facebook page-ka iyo YouTube channelku barnaamijku leeyahay. mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.